asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gabagabadii ku dhawaaqay waqtiga ay dowladdu gacanta ku dhigayso hogaanka sare ee shabaab oo weli dagaalamaya faahfaahin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. xilligan waxaa hadalka madaxweynaha kusoo aadiyey dadka la afduubtay tiradooda. baarista hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyana waxa ay si toosa markaan u gashay xarumaha sarsare ee madaxtooyada iyo baarlamaanka. xildhibaanada weli cabanaya maqaarkood ayaa ka cabsi qaba in baaris lagu sameeyo. halkan ayaan idinkagu soo gudbin doonaa. safiirada dalalka turkiga iyo norweydna waxaa laga hor istaagay inay gaaraan magaalada hargeysa ee xarunta somalilan kadib kulamadii ay kaga qeyb galeen muqdisho. madaxweyne lafta garaan dib ayuu ugu soo laabtay baydhabo. kulan deg deg ayuu la qaatay saraakiisha ciidamada ma aqbali doonaa dhaqdhaqaaqyada ka socda muqdisho iyo sidoo kale inuu furo shirka ay iskugu yimaadaan siyaasiyiinta koonfur galbeed soomaaliya. dowladda kenyana waxay ku dhawaaqday in ay howlgal military ay ka bilaabayso xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya. inta daawatan waa qodobada wararkeena. daawada kusoo dhow wararkaasi wararka dhammaystiran subscribe saara janalka sidoo kale follow gare oo share gare pagekana waa ku mahadsan tahay daawashada ila socodka wararkeena. ana ku bilowna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay in la joogo waqtiga gabagabada ahaa ee guud ahaanba lasoo afjari lahaa dagaalka ka socda gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka. waa taariikh qoran oo ka mid noqon doonta guud ahaanba taariikhaha dalku uu leeyahay iyo dhibaatooyinka soo maray soomaaliya, ayuu yidhi ururka shabaab ee aan xilligan la dagaalamayno. taasi waxay muujisay in ay meesha ka baxday rajadii ay muujinayeen siyaasiyiin badan ee ahaa in ururkan usoo laba kacleyn karo islamarkaana uu mar kale dib u qabsan karo magaalooyinka laga durjiyey ee gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. madaxweyne xasan ayaa muujiyey in dowladda sida ay kaga go-an tahay inay gacanta ku dhigto guud ahaanba hogaanka sare ee ururkaasi, isagoo xaqiijiyey in guulaha isdabajooga ah ay gaarayaan ciidanka militariga soomaaliya ay yihiin kuwo muujinaya in la joogo dhammaadkii ururkan iyo in taariikhdiisa guud ahaanba ay noqoto mid ka mid noqota dhibaatooyinkii dalka soo maray sida dagaalkii sokeeye ee burburkii 91dii hogaamiye kooxeedyadii ururadii hubeysnaa ee maxaakiimtu ay ka mid ahayd iyo sidoo kale xilligan oo la joogo waqtiga ugu dambeeyey. madaxweyne xasan ayaa waxa uu sidoo kale soo dhaweeyey tillaabooyinka ay qaadayaan saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo ku aadan in la xoojiyo isculufaysiga iyo ballaarinta howlgallada ciidan ee ka socda gobolada koonfurta. hadalkiisana ayaa ah mid si toosa ugu socday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan muujiyey in xaaladda amni ee dalka aynan gacanta ku jirinin islamarkaana ay jiraan dhibaatooyin ka dhacaya afaafka hore ee madaxtooyada iyo meelo kala duwan oo ka tirsan goobaha ugu muhiimsan wadankii ay ku sugan yihiin bulshada haldoorka. hadalkaas ayuu kaga jawaabayay in qof walba oo dhagaha u taagaya in ururkan uu yahay mid sii jiri doona mashruucna ku qaata, inuu yahay mid soo gabangaboobay hawshiisu islamarkaana guud ahaanba daqada laga saaray. madaxweyne xasan ayaa waxa uu gelaya socdaal uu ku marayo dalalka africa iyo sidoo kale qaar ka mida yurub iyo america, wadamada saaxiibka la soomaaliya gaar ahaan mareykanka uu kaga qeybgalayo shirka africa iyo mareykanka ayaa la filaya inuu ka jeediyo khudbad uu kaga dalbanayo dunidu inay ilgaara ku fiiriso waayo aragnimada soomaaliya ay u leedahay la dagaalanka argagixisada iyo muquuninta kooxaha xagjirka, iyadoo aan kaashanaynin ciidamada dalalka caalamka ee shisheeye ku sugan dalka gudihiisa. taasi oo noqon doonta midda soo afjarta taariikhda ciidanka midowda africa ee dhaqaalaha ku qaata dalka gudihiisa. xog la helaya ayaa muujinaysa in baarista ay sameyneyso hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ay gudaha u gashay xarumaha madaxtooyada iyo sidoo kale baarlamaanka, iyadoo xildhibaano badan ay ka keenayaan qeyladhaan dhinaca baarista la sameynayo. hay-adaha ammaanka ayay xildhibaanadu ka cabanayaan iyagoo sheegay in baaris lagu sameynayo, taas oo dad badan ay u fahansan yihiin in ay jiraan xildhibaano badan oo baxsad ka ah baarista hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale hubintooda intaba. waxaa suurtagal ah in qaar badan oo kamid a xildhibaanada ay yihiin kala gudbiyaasha iyo sidoo kale dalaalinta falalka lagu daadiyo dhiigga muwaadiniinta soomaaliyeed. sidaa daraadeedna waxaa jira saraakiil iyo sidoo kale haldoor ciidan oo hortaagan tillaabo walba oo ay qaadayaan dadka dhagarta abaabuli kara. sidaa daraadeedna waxaa baarlamaanka hortagay dhowaan xildhibaano muujinaya in dalka amnigiisu uu dayacan yahay, sidoo kalena aynan dooneyn in la baaro. waxaa hadalka isqaban waayey in xildhibaanadu ay baaris la kulmayaan oo ay diidayaan baarista iyo sidoo kale in ammaankooda la sugo oo ay isku wada maraan dadaan la baarin. waa dad lasoo baaray in ay isku wada maraan, taas oo muujinaysa khatarta amni
iyo sidoo kale falalka ay sameyn karaan shakhsiyaad ku dhex dhuunta xildhibaanada qaarkood ee doonaya in ay baarista maraan. si walbaba ha ahaatee saraakiil ka tirsan nisa ayaa waxa ay sheegeen in baaristu ay si toosa kaga bilaabanayso baarlamanka iyadoo dabagal lagu sameynayo shakhsiyaadka howlwadeenada ee ku sugan xarunta iyo sidoo kale in la korjoogteeyo dhaqdhaqaaqa mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada intaba. sidoo kale hay-adda sirdoonka ayaa la aaminsan yahay inay baaris toosa ay ku sameyneyso saraakiil iyo xubno kala duwan oo howlwadeena oo ku sugan xarunta madaxtooyada kuwaasoo iyagana dabagal lagu sameynayo suurtagalnimada inay yihiin dalaalin ururka u jooga meesha islamarkaana u qaabilsan xogaha madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka imaanaya. safiirada dalalka turkiga iyo sidoo kale norway ayaa laga hor istaagay inay tagaan magaalada hargeysa ee xarunta somalilan sida ay xaqiijinayaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa bixisay amar degdega islamarkaana guud ahaanba lagu hor istaagay safiirada labadan dowladood ee kale ah turkiga iyo norway kuwaas oo lagu eedeeyay inay qaadeen tillaabooyin ka dhana madax banaanida diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed iyo bulsho ee somalilan kadib markii ay kulan la qaateen madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay ka dalbadeen inay hogaanka u qabtaan wadahadalada labada dhinac ee dowladda federaalka iyo sidoo kale somalilan ayaa waxaa safiiradan sidoo kale ay u kicitimeen magaalada hargeysa. somalilan ayaase ku gacan sayrtay iyadoo dareensan in xukuumadda ankara ay tahay mid ku taagan oo ku adag wadajirka bulsho ee soomaaliya si ay danaheeda kaga heshana waxa ay dowladda turkiga ku eedeysay in ay tahay mid aan xilligan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha laysku hayo sidoo kalena aan wada hadalsiin karin labada dhinac iyadoo xukuumadda somalilan dalbanaysa in doorkaasi la siiyo dalalka mareykanka iyo UK oo ay u aragto inay yihiin wadamada ugu dambeeya ee dunida ay tahay in ay cadaaladu sameeyaan labada dhinac oo ay kala saaraan. safiirada labada dowladood ayaa bahwadaa ku noqday qorshe ay ka wada shaqeynayaan oo dowladda xasan sheekh maxamuud lagu cadaadinayo inay si deg dega u furto wadahadal isagoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku wargeliya labada safiir in ay iyaguna sidoo kale dhinaca diblomaasiyadda iyo saaxiibada caalamka dhankooda ay hogaanka u qabtaan qorshaha dowladda federaalku ay ku gaarayso wadahadal toosa oo dhinacyadu ay furaan islamarkaana lagu soo afjaro wixii kala aragti duwanaana ama tabashaa oo bulsho deegaan iyo siyaasad ahaan intaba ay u tabanayaan dadka somalilan. sidoo kalena waxay safiiradan ay doonayaan inay u kurgalaan xaalada siyaasadeed ee ka jirta deegaanada somalilan gaar ahaan midda muranka doorashada oo muddooyinkii lasoo dhaafay gaamurey islamarkaana u muuqda inuu yahay mid sii laba jibaarmaya marka la eega habka ay xukuumadda muuse biixi cabdi ay u wajahayso khilaafka kala dhexeeya mucaaradka. dowladda turkiga ayaa u aragta in ay tahay dalka kaliya ee ka dhabeyn kara wadaxaajoodyada labada dhinac. madaxweyne laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ayaa hogaanka u qabtay shir deg deg oo iskugu yimaadeen saraakiisha ciidanka qalabka sida ee koonfur galbeed iyo sidoo kale xubno kala duwan oo dhinaca ammaanka kuwaas oo ka shiray ammaanka magaalada baydhabo iyo guud ahaan xaalada amni ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. waxayna dhinacyadu wada ambaqaadeen sidii lawadana taxliiliyeen sidii looga dhabeyn lahaa guud ahaanba ruqaansiga siyaasadeed iyo midka abniga ka jira deegaanada koonfur galbeed. waxaana madaxweyne laftagareen uu ku wargeliyey mas-uuliyiinta xukuumadda iyo hay-adaha ammaanku inay si deg deg uga shaqeeyaan oo ay ka hortagaan khatar walba oo ka iman karta dhinaca dowladda federaalka iyo saaxiibadeeda. waxa uu aaminsan yahay in ay jiraan siyaasiyiin badan oo fila soomaaliya gacansaar la leh kuwaasoo doonaya inay marwan meesha ka saaraan oo ay xaqiijiyaan in uu ku guuldaraystay siihaynta xilka iyo muddo kororsiga uu samaystay madaxweyne laftagareen. gareen ayaa maalmihii lasoo dhaafay dadaal ballaaran ku bixinayay sidii uu u sameyn lahaa iska caabin siyaasadeed isagoo kasoo horjeeda tillaabooyinka ay qaadayaan gudoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamanka iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo uu sheegay inay yihiin labada shaqsi ee abaabulka wada. ugu dambeyntiina dowladda kenya ayaa waxa ay isku diyaarineysaa inay howlgal militari oo ballaaran ay ka fuliso deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya gaar ahaan aagga xuduudda ay wadaagaan degmada ceel waa qabalada xaawo iyo sidoo kale guud ahaan gobolka gado oo ay si toosa kaga fulinayso howlgalla militari iyadoo weliba xagga cirka adeegsanaysa islamarkaana sheegtay
inay ka hortagayso unug walba oo loo arko inuu khatar ku yahay nabadgelyada badqabka muwaadiniinta bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Kenya ee dariska ah ee ay isku xiran tahay naftooda iyo maalkooda iyo sidoo kale darisnimadooda intaba una baahan in loo furo wadada isku socodka ee xuduudda. Waxayna sheegtay in howlgalladaas ay noqon doonaan kuwo soo afjara khatar walba oo bulshada hortaagan. guudaan daawadeyntaas waxaa ku dhan warka oo kaaga imaana dhambaalka wararka daawadaan nagu cusubtaa subscribe saar channelka sidoo kale follow gareew share gareew page-kana waa ku mahadsantahay daawashada ee la socodka wararkeena. nabadgelyo.